magaalada Istanbul ee dalka Turkiga maalmo kadib waxaa lagu qaban doonaa shirkii horey loo iclaamiyay ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo la hadlayay ergooyinka Soomaalida ee shirkaasi ka qayb galaya ayaa waxa uu sheegay in dalka Turkiga haba yaraatee aanu wax dana ka lahayn dalka Soomaaliya isla markaana aanay jirin cabsi dhinaca ammaanka oo ay xilligan dalka Turkigu kaga walwalayaan dhinaca dalka Soomaaliya. Ahmed Daawtola waxa uu sheegay in dalka Turkigu ay dhab ka tahay in uu badbaadiyo dalka Soomaaliya iyadoo la eegayo mabaadi'da bani'aadanimo. Daawtola oo la hadlayay ergooyinka Soomaalida ee isugu jira dhaqanka iyo bulshada rayidka ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka xilligan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Turkigu ay doonayaan in xiriir wanaagsan ay la yeeshaan. sababtuna waxa ay tahay in Soomaaliya iyo dalka Turkigu ay ka dhaxaysay xiriir qoto dheer sida uu hadalka u yiri. waxa kale oo uu sheegay in Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalka sida weyn loogu yaqaanay ilbaxnimada qarnigii 16aad oo haddana dhinaca kale guud ahaan xasilooni dalkaasi uu ka jiray. ujeedada shirka Istanbul ayaa waxa uu sheegay inuu yahay sidii loo qorsheyn lahaa mustaqbalka Soomaaliya. awood kasta oo suuragal ah ayaa dawladda dalka Turkigu waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonto sidii Soomaaliya dhibaatooyinkeeda looga saari lahaa. waxa kale oo uu tilmaamay in xasiloonida xilligan loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka dhalato ay micnaheedu tahay guud ahaan xasilooni ka dhalada qaaradda Afrika. waxa uu ku booriyay ergooyinka shirka ka qayb galaya inay yeeshaan kalsooni buuxda mar haddii ay ka soo jeedaan ilbaxnimo sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu xusuusiyay in magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya xilligii uu booqanayay dhul mareenkii caanka ahaa ee Vasco da Gama uu magaalada Muqdisho ku tilmaamay magaalo barwaaqo ah. waxaana xilligaasi ay ahayd qarniyadii 15aad iyo 16aad. Turkish foreign policy and strategy, Somalia is not an ordinary country. Somalia is the backbone of stability in Africa. Somalia is the main test for all humanity today because of the sufferings of women, children. Therefore, for us, helping Somalia is not just helping to a brotherly country, but it is our historic duty to help Somalia because of our long-standing historical relations going back to 16th century. And it is a human duty for us as your brothers and sisters. In our tradition, we have one simple principle. If our brothers and sisters are hungry or need food or cannot sleep because of the shortage of food, in the other corner of the world, we cannot sleep here in Turkey. That's our philosophy. Not only our neighbors. Therefore, whatever we have in our hand, our capacity, we will be sharing with Somalia. This is a human duty for us, and it is a strategic choice because stability of Somalia. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Ahmed Daawtola ayuu ahaa kaasi oo la hadlayay Soomaalida ka qayb galaya shirka magaalada Istanbul.